Assalaamu calaykum daawade beri waxaa jiri jiray ninkan doktorka ah oo markaasi ahaa mid isagu dadku ay aad iyo aad u jecel yihiin magaciisuna yahay mid caana doktorkani waxa uu haystay wax kasta oo uu jecel yahay oo uu jeclaa yaraantiisii inuu helo maalin maalmaha kamida waxaa yimitay isbitaalkiisii nin markaasi doktorka ballan lahaa balse isagu ma uuna joogin oo halkaasi waxa uu kula kulmay ninkii sekretariga u ahaa waa uu fadhiisiyey ninkii labadii ninna sheeko ayaa dhex martay ninkii doktorka ballanta la lahaa waxa uu weydiiyey ninkii kale sababta marka magaca doktorka la wacayo loogu lifaaqo magaca hooyadii ninkii waxa uu uga sheekeeyey qisada ka dambaysa iyo sheekadii yaraantiisii waxayna ku bilaabatay sheekadu sidan hooyadii iyo isaga ayaa isla noolaa isagu aad iyo aad ayuu u yaraa waxuuna ahaa mid markasta ay hooyadii toosiso si uu markaasi u aado iskuulka waxayna ahayd hooyadii mid markaasi jecel sidii uu heer u gaari lahaa waxayna ku tidhi hooyso ma doonaysid sidayda oo kale inaad xafiis ka shaqaysid waxaa loo baahan yahay subaxdii in aad dhaqso kacdid isla markaasna aad cadayatid oo aad isku diyaarisid iskoolka waxa uu yidhi hooyo haddii ay saa tahay oo aan noqonayo sidaadoo kale qof xafiis ka shaqeeya hadda kadib waa aan dadaalaya ayuu ku yidhi isla markaasna waxa uu isku diyaariyey in uu aado iskoolkii isaga oo markaasi quraacday balse waxa uu ahaa mid buugtiisa aan haysan boorso uu ku rito oo waxa uu ku qaadan jiray gacmaha sidoo kale ma uuna haysan kaba uu xidho hooyadiina markasta waxa uu ku odhan jiray hooyo goorma ayaad ii gadaysaa boorso aan ku rito buugaagtayda balse hooyadii waxay u qaban jirtay maalin kasta ballan ayay u qaban jirtay waxayna ku odhan jirtay waan kuu gadi doonaa hooyo iskoolkii markii uu yimiday macalimaddu waxa ay weydiinaysay ardayda qof kasta muxuu jecel yahay markii uu weynaaday inuu ka shaqeeyo wiilkaa yarka ah wuxuu yidhi anu waxaan jecelahay inaan noqdo boolis gabadhan yar waxay tidhi anu waxaan jecelahay inaan gado khudaar sida hooyaday oo kale wiilkii yaraa ayaa la weydiiyey su-aashii waxuuna yidhi waxaan jecelahay macalin in aan anigu noqdo doktor markaasi dadka daweeya oo ay dadku jecel yihiin ardaydii oo dhan ayaa ku qosashay wiil yar oo ka mida ardaydii waxa uu ku yidhi adigu maba haysatidba boorso aad ku guratid buugaagtaada sidoo kale kaba ma xidhnid si aad ku noqon kartaa adigu doktor waa uuna ku qoslay macalimadii ayaa aamusiisay wiilkii yaraana waxa ay ku tiri wiilkaygiiyo waxaa loo baahan yahay inaad waxbarashadaada aad wadid oo aad ka miro dhalisid riyadaada waanad gaadhi doontaa wiilkii yaraa waxa uu yimiday gurigoodii isaga oo aan faraxsanayn waxa uu ku yidhi hooyadii hooye waxaan u baahanahay gaajo saa'ida ayaa haysay inaad siisid cunto waxayna siisay cunto balse waxa uu uga sheekeeyey ardaydii iyo maanta hadalladii ay ku dhaheen balse waxay ku tiri hooyadii hooye waxba ha ka soo qaadin waan kuu gadi doonaa wuxuu ku yidhi hooyadii waa inaad iga saartaa gebi ahaanba iskuulka ayuu ku yidhi oo ma noqonayo anigu doktor maya ayay ku tiri wiilkaygiiow sidaas ha u hadlin waxoogaa ii qabo aniga ayaa kuu soo gadi doonaa hooyadan ayaa ahayd hooye markasta qufacda oo xanuunsanaysa hooyadii waxa uu ku yidhi maya hooyo anigu waan iska dhaafayaa riyadii ahayd inaan anigu noqdo doktor oo waan iska daynayaa maadaama aanan haysan kabo iyo boorso mana noqon karo qof aanan haysan boorso iyo kabo doktor ma noqon karo riyadaana waan iska dhaafayaa isagoo xanaaqsan ayuu ka baxay hooyadii cuntadiina ma auna cunin oo waa uu iska seexday subaxdii waxa ay ku tiri hooyadii iskuulka isku diyaari sidaydoo kale aad noqotid qof xafiis ka shaqeeya balse waxa uu ku yidhi hooyo iskool ma aadayo adiguna kama shaqaysid xafiis haddii aad xafiis ka shaqaysid boorso ayaad ii soo gadi lahayd waa uuna iskaga baxay isagoo markaasi aaday bannaanka wiilkii yaraa waxaa ka soo horbaxday islaan markaasi aad iyo aad u gabowday waxayna ku tiri waan ku salaamay wiilkaygiio ayaa tahay ayuu ku yidhi waxay ku tiri hooyada ayaan saaxiib nahay waxayna u sheegtay inay markasta hooyadii isaga uga sheekayso oo waxa uu ku yidhi kii yaraa hooyadii maxafiiska ayaad kala shaqaysaa balse islaantii waa ay ku qosashay wax jawaabana ma aysan siin oo waxay ku tiri muraayadan hoo waxa uu ku yidhi wiilkii yaraa waa maxay muraayadani maxaad muraayadan ii siisay balse waxay ugu jawaabtay islaantii su-aal kasta ood qabtid wiilkaygiio muraayadan ayaa ku siin doonta muraayadii waa uu fiiriyey wiilkii yaraa waxa uuna ka dhex arkay hooyadii oo intay dadka dariska u timaado ku leh walaal waxaan rabaa inaad isiisiin waxoogaa yaroo raashina oon wiilkayga u kariyo beddelkeeda gurigaaga ayaan kuu nadaafinaya oon kuu hagaajinayaa
haweenaydii waxay ugu jawaabtay walaal waan ku siinayaa balse ilaa goorma ayaad wiilkaaga runta ka qarin doontaa waxay ugu jawaabtay hooyadii anigu waxaan ka qarinayaa wiilkayga runta ilaa inta uu hamigiisa rumaynayo waxayna ku tiri gabadhii waxaan jeclaan lahaa inaad runta u sheegtid waxay ugu jawaabtay hooyadii mar kale uma sheegayo wiilkayga runta sababtoo ah waxa uu ku hanweyn yahay oo uu ku rajo weyn yahay inuu noqdo doctor haddii uu ogaado inay hooyadii u shaqayso xaafadaha amabase ay shaqaalo tahay hamigii ahaa inuu doctor noqdo waa uu ka rajo dhigayaa oo markaasi waa uu iska dhaafayaa wuxuuna noqonayaa mid niyad jaba hooyadani waa ay xanuunsanaysay waxay ku tiri haweenaydii ma adiga oo xanuunsanaya ayaad wiilkaaga shaqaalo u noqonaysaa balse waxa ay tiri waan ku qasbanahay inaan noqdo shaqaalo waayo wiilkayga cid kale oo u shaqaysa ma hayo wiilkii yaraa waxa uu ogaaday in hooyadii ay tahay shaqaale isaga dartiina ay iskaga dhigto inay xafiis ka shaqayso sheekadii markii uu ogaaday waa uu iska ooyey guud ahaanba waxa uu waayey islaantii iyo muraayadii waa uuna soo cararay isagoo dhanka hooyadii u soo cararay markii uu gurigii yimid waxa uu arkay kabihii iyo boorsadii oo hooyadii u soo gaday aad ayuuna u farxay hooyadiina waxay ku tiri hadda soo kuma laabanaysid iskuulkii wiilkaygiiyow oo ma noqonaysid doctor waxa uu go'aan ku gaadhay maalinkaa wixii ka dambeeyey in markii uu weynaado uu doctor noqdo magaciisa lagu lifaaqi doono magaca hooyadii sheekadii ninkii sidaas ayuu uga sheekeeyey ninkii sheekadii aad iyo aad ayuu ula murgay waxayna ahayd mid markaasi ka qiiraysiisay waa kuwan doctorkii iyo hooyadii oo markaasi ku sugan goobtii shaqada qof kasta wixii uu dadaalo waa uu gaadhaa daawade sheekadeenna maanta intan ayay ku eg tahay waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowga